markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, duco waa erey ka soo jeeda afka carabta. af soomaaliga waa baryo, waa tuugmo, waa gacmo warasho iyo ilaah oo sacabada loo taagto. wax maantaas mucurta inoo hayso inuu ina mihiibsiiyo ayaynu ka tuugnaa, inuu inaga faydo dhibaato markaa ina hareereysay oo dhexdeeda aynu ku sayicsannahay ayaynu ka barinaa. tu aynu ka baqayno oo inay soo dhowdahay loo filaayo inuu radeebana waynu ka tuugnaa. ducadu waa hiddo uu aadanuhu ka siman yahay, gaar ahaan dadyowga kala taabacsan saddexda diimood ee caqiidada tawxiidka. diinta islaamka markii la yidhaahdana ducada waaba la isfarayoo waatay aayadda qur-aanka ahi ahayd, udcuunii astajib lakum, ibarya waan idinka yeeliye. haddaanan gabsanayna waxaa isna jira xadiis odhanaya adducaa'u mukhu lcibaada, oo macnihiisu yahay ducadu waa maskaxda cibaadada. soomaalidii reer miyiga ahayd si weyn bay waxtarka ducada u rumaysnayd. ducada culimmada, ducada xigaalka, ducada gabyaaga, intaba in loo aayo ayay aaminsanaayeen. waxaase kuwaas uga daraayo oo ay dhab u jirin jireeni waa ducada waalidka. qof dabeecad ahaan si kale loo uumay ha joogtee, warasadu waxay ku dadaali jirtay si walba oo ducada waalidkood ay ku taabi karaan, taasoo laga fisho wanaag badan oo ifka keliya aan ku koobnaane ruuxa lagu galladaa ay u badan tahay inuu aakhirana u aayo. allah u naxariistee gabay siyaasadeed 1968 uu aadan carab tiriyey ayaa alartiisa waxaa ku jira tuduc uu ku muujinayay qofkii ducada waalidkiis ku guulaystaa wanaagga iyo dheefta uu ka heli karo. wuxuu yidhi, dooxada waraabtay oo in badan daadku muracyeeyey iyo duco hadduu waalidkaa dacalka kuu buuxsho, labaduba duraayay ahayd inay dux reebaane. mar qofku isaga ayaa lafihiisa u ducaysta, marna bulshada uu ku dhex nool yahay ayuu u duceeyaa. kolkay dhibaato culusi si baas u wada saamayso ayay soomaalidu wadajir u ducaysan jirtay. fagaaro lagu ballamay ayay soo buuxin jireen rag iyo dumar, wiil iyo waayeel, culimo iyo caamo. halkaas baa inta lagu kulmo sheekha degaanka, curadka reeraha iyo gabyaagoodaba waxaa la weydiisan jiray inay duceeyaan, iyada oo inta kalena ay aaminsanayso. allah u naxariistee maxamed guuleed faarax cadde oo waarana lagu nayaasi jiray wuxuu ahaa gabyaa hibada maansa curinta si walba loogu deeqay. wuxuu ka mid ahaa halabuurada inay gabay wax kuugu sheegaan ay uga fududayd inay hadal caadi ah wax kuugu sheegaan. 1978 mar aan balanballa kula kulmay ayuu ii mariyey gabay uu eebbaweyne kaga baryaayay inuu uunka ka soo gaaro abaartii dabadheer ee 1974 soomaalida silcisay oo saxariirisay. wuxuu yidhi, ilaahow adaa aadahoo lagu aguujaaye, ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane, ilaahow aqoonshiyo runtiyo amarku waa kaaye, ilaahow abuurtaadu waa abadmaguuraane, ilaahow anoo kale tix baa lagu ikraamaaye, ilaahow isniin baan dhashay iyo ururkii khayraade, ilaahow warkaan saadiyaa la abshiraystaaye, ilaahow ayaantaan gabyo yaa lay ogaan jiraye, ilaahow adduunkan ma arag odaya raagaaye, ilaahow afguri yaa dhacay iyo aamus iyo yaabe, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay. intaa markuu yidhi ayuu eebbe u bandhigayaa dad iyo duunyaba siday abaartu uunka u halakaysay iyo gargaarkiisa degdega ah baahida ay u qabaan. ilaahow dadkii iilayoo alawi loo luudiye, ilaahow ilmuhu waa signiin adhiina naafowye,
ilaahow imbiib baanu nahay eegga dabadeeda ilaahow unuun iyo lafo yaa iridka noo yaalla ilaahow arxama waysnacday iyo ehel la tuugaayo ilaahow adeer iyo walaal ways ag marayaana ilaahow cilmiga aakhiriyo eel la garan waaye ilaahow ducada iga ajiib kuu ergaanahay ilaahow ugandha iyo ruush laga arsaaqdooye ilaahow amxaarada cunnaa loo abeedsaday ilaahow akhyaartii looley ulama tuuraane mar haddayan aalada wadwadin agabla weeyaane ilaahow addoolada nirgaha loo anqarin waaye ilaahow haruubkaa engegay tan iyo iimeeye ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay dhibaatada abaartu dadka iyo duunyada ay ku hayso iyo taagdarradooda markuu sidaas u kala dhigdhigay ayuu u soo dhacayaa waxa isaga iyo bulshadiisu ay rabbi ka doonayaan dabadeedna wuxuu yidhi ilaahow abaartana dawee ilina noo hoorto ilaahow cirkuna noo unkado uwaxna noo laaco ilaahow jiraan aafo wadin nagu ekee maanta ilaahow carradu aarantoo aayar lagu naaxo ilaahow abay noo dhasho inan kullayn waayo awaarihiga siigada allow roobku ku arooro allow subag ardaayada ku xidhan awrtu sidii weydo ilaahow aroos loo baxo iyo ilixid geed weyn sidaan soo sheegay ducadu mar waa sidaasoo gabyaaga ayaa bulshada degaankiisa oo idil u duceeya marna keligiis baa maansada ku ducaysta taa dambana aan ku tusaaleeyo geeraas laga hayo gabyaa la odhan jiray xariir aadanoo u ducaysanaya in rabbi ka qaado dhibaato aanu carabka ku dhufanayn asi uu ka ladi waayey goor habeenbara intuu toosay oo sid muggii u fadhiistay ayuu marka hore eebbe uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee uu u abuuray iyo xubnaha jidhkiisa siduu isugu dheelitiray markaas kadib buu si deggan uga tuugayaa inuu uga miciino dhibaatadaas isaga iyo allihiis oo qurihi ay isla ogyihiin wuxuu yidhi dhammigiiba jidhkayga allihii dhooba ka uumay ee dhisay ee isku joojiyee isu dheeli u diidayow dhibta aan qaba caawa dhaqsa iiga korqaad cagta aan dhulka saariyo lugahaan ku dhaqaaqiyo gacmahoo dhab wax siiyiyo dhaayaha wax arkaayiyo dhawaaqaan ku hadlaayiyo dhagahaas qabanayiyo dhabbada neeftu maraysa oo hadba ay dhan u qaadiyo dhuubanow carabkayga dhuunigaa aan cunaayo dhandhanaanka karuurkiyo dhayda xoorka macaan leh dhadhankooda u qaybsan dhitadaydiiyo kaydka calooshaan dhiganayo dhinaca aan u jiifiyo dhammigiiba jidhkayga allii dhooba ka uumay ee dhisay ee isku joojiyee isu dheeli u diidayow intii uu naf ku dheehay dhaqaajee socodsiiyayow dhibta aan qabo caawa dhaqsa iiga korqaad dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa haynoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo